السلام عليكم soo dhawaada muuqaal cusub iyo maalin cusub. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa Jajniya ama Shiishaan. Jajniya ama Shiishaan waa maxaa la dhahaa caasimadiisa waxaa la horto Grozny. Waxaa la dhahaa waa meelaha ugu quruxda badan koonka maanta. Waa dhul dalxiiska ku fiican, dhul dabiici ah aad u qurux badan uu leeyahay iyo dumar qurux badan. Wadankan waa meel dalxiiska ku fiican laakiin duruufaha siyaasadeed ee wadanka ka jira ayaan saamaxayn in maxaa la dhahaa dalxiisayaasha ay ku dhiiradaan ay tagaan. Caasimada wadankan waxaa la dhahaa Grozny. Wadankan magaca Shiishaan wuxuu u baxay 1708 miilaadiyada markay ahayd waxaana bixiyeen dad Raashiyaan asalkooda yahay. Waxay tageen ee booqdeen gobol la yiraahdo Tashtin oo caasimada wax yar u jiro. Tashtin la yiraahdo markay meesha tageen ay magaca Raashiya bixiyeen magaca waxay u bixiyeen Shiishaan. Wadankan badkiisa waa 17.3 kiiloomitir isku wareeg ah waaye laakiin Georgia maxaa la Russia waxay sameysay waxay wadankan badkiisa u kala qaybisay Georgia, Dagestan iyo Ossetia maadaama ayada kor ay ka maamushay kor ay ka haysato mustacmarada madax furan ay yihiin wadamadan waxay badkeedii ku kala dartay Georgia, Dagestan iyo Ossetia. Dadka dago waxaa la dhahaa waa 1,300,000 diinta wadankan waa diinta Islaamka inta badan waxay isticmaalaan madhabka sunniga waaye waxa waaye sunni madhabka shaafiiciyada haystaan. Wadankan waxaa la dhahaa dumar qurux badan ay qabaan. Dumar qurux badan nimanka Soomaaliyeed ayaga naaga qurux badan raadin jiray wadankan waa inay ka doonaan. Wadankan waxaa la dhahaa waa dumar qurux badan oo ku nool indhahooda midab ay leeyihiin tin naacim oo dheer qurux badan leh dhuuban waana gabdho dheer xagga tarankana waxaa la aaday u tarmaan way ku leexjii baarmaan dadka Raashiyaanka xagga taranka marka la yiraahdo. Marka wadankan waxay caan ku yihiin dumarkooda quruxda badan ee adduunka dhan kaga soo caan yihiin. Marka intaan ku soo gabagabeeyaa soo dhawaada